السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي بسيطة مخلكي مخالكي إذن سوق جاري وظهر رجاء سبورتس بالعادة أنا هو جيلاني حالي معه كمرة maamulka ciyaaraha ee degmada Balcad ayaa ugu dambeyn waxay shaaciyeen maalinta la ciyaari doona kaba dambaysta tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad oo ay ku madalsan yihiin Waabiri Iridole iyo sidoo kale Waabiri Star iyo Iridole oo ka soo wada baxay groupka A ayaa waxay wada ciyaari doonaan kama dambaysta tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad. Kulanka kama dambaysta ee tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad ayaa Dr. Ayub Stadium waxa laga ciyaari doonaa maalinta Birita. maalinta Jimcaha ee biri ayaa laga ciyaari doonaa Dr. Ayub Stadium. Labada kooxoodba waxay ku jiraan diyaar garow si ay markaasi koox waliba ay u doonayso in markaasi ay ku guuleysato koobka ee degmada Balcad kaas oo markaasi aad moodo in sanadka kan uu ka duwan yahay sanadadii hore. Iridole oo baahi weyn u qabto koobkan iyo sidoo kale Star oo markeedii saddexaad soo tiigsatay finaalaha laba jeer oo hore ay u soo ciyaartayna ku guuleysatay ayaa markaan wada ciyaari doona. nasiibka saacidi doona ma Iridole oo baahi weyn u qabta inay ku guuleysato tartankan ayaa ku guuleysan doonta mise Star oo doonaysa markeedii saddexaad inay ku guuleysato ayaa ku guuleysan doonta. Waxa soo ogaataa in labadan koox ay hore u soo wada ciyaareen ayagoona markaasi hal group ay markaasi ka soo wada baxeen. Group A ay labada kooxba ku jireen. Haddii tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad daafurkiisa lagu daafuray Balcad Star iyo Iridole hadaba ugu waxa lagu soo xirayaa Balcad Star iyo Iridole oo group A ka soo wada baxay. Hadaba kulankii ugu horeeyay markaasi ay wada ciyaareen Iridole iyo Star oo ahaa furitaanka tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad waxay gool raacday Iridole oo hal gool iyo waxba kaga adkaatay Balcad Star. Hadaba Iridole miyaa mar labaad garaaci doonta Balcad Star oo ma ka guuleysan doonta mar labaad koobkana ma qaadan doonta mise Star oo ka careysan guuldaradii ay kala kulantay Iridole kulankii koowaad ee daafurka ahaa ee lagu daafuray tartanka heerka koowaad miyay aarsan doontaa mise waa loogu dari doonaa sidee wax noqon doonaa heeru moobi kartaa ma Star oo leh waan argoosan doonaa oo koobkana waa qaadi doonaa mise Iridole oo leh horay ayaa u soo garaacay hadana waan garaaci doonaa koobkana waa qaadi doonaa ay riyadooda rumoobi doontaa. Labada kooxoodba sida ay noo sheegeen dad wagaal oo ahaa xiliyada markaasi ay loolami jireen sagaashimeedii iyo markii loo eego 2000 iyo waxay ahaayeen laba koox aad u loolama koobabka laga dhiga degmada Balcad. Ay ahaayeen kooxaha kaliya ee sida adag markaasi u xifaaltami jiray xilligii hore. balse taasi waa laga soo gudbay oo Star waxba iskamaysan sii bedelin inay loolanto oo finaalihii inay tagtano waxa waaye waxba iskamaysan sii bedelin. Laakiin waxa dhadhanka ciyaarta u yeelaya ayaa waxay tahay Iridole oo dib u dhac ku yimid mudooyinkii ugu dambeeyay isla markaana 2 sano ama 1 sano biida soo ciyaartay isbedel sameysay sanadka kan heerka koowaad oo cadar aad u weyn ka muujisay hal kulan aan laga badinno si imbiitan ku imaaday kama dambaysta ama finaalaha iyo Star oo horeyba u soo ciyaari jirtay finaalayaal aad u fara badan soo ciyaaray sanadka kan sanadkii ka horeysay ciyaaray kii ka sii horeysanay ciyaaray 2 sano oo hore ay u ciyaartay ku guuleystay kii saddexaad oo xiriir ahna sanadkan finaalaha taagan. Hadaba waa koox baahi u qabta inay ku guuleysato kama dambaysta tartanka finaalaha degmada Balcad ay qaado baahi weyn u qabto inay ku guuleysato koobka heerka koowaad ee degmada Balcad iyo koox horay u qaadi jirtay barneed in koobka heerka koowaad ee degmada Balcad la qaado. Marka labadaas kooxood ayaa ku loolami doona kama dambaysta tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad. Hadaba Iridole miyaa u rumoobi doontaa hadafka weynaa ee kala haayeen tartankan oo ahaa inay ku guuleystaan muddo kadib mise Star ayaa saddexeysan doonta oo wixii markaasi looga barnaa si sameyn doonta. Hadaba sidee noqon doonta ciyaarta lama aqaan laakiin labadan kooxba waa laba koox aad u loolami jirtay sanadka kanna aad u loolantay markii loo eego heerka garuubaha qaabka ay u soo wada ciyaareen iyo sidoo kale kama dambaysta tartanka qaabka ay taageerayaasha falcelin aad u weyn baraha bulshada markaas ay kala gudbinayaan.
Star ayaa 7 gool iyo 2 kaga soo gudubtay fiinaalaha ii sheegay Xamatako ayadoon markaas la dhihi karo si awood leh ay markaas ku soo gudubtay kama dambeystan ku soo tiigsatay sidoo kale Iridole ayaa 2 gool iyo gool iyadan ku soo tiigsatay fiinaalaha kama dambeystan tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad ayagoon Elman 2 gool iyo gool ku garaacay si awood lehna markaas ku soo tiigsatay kama dambeystan tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad ayagoon markaas si biitina markaas halkan ku joog Star oo hal kulankii koowaad ee wada ciyaareen Iridole ayaga laga soo guuleystay inta kale si biitina ay markaas ku wada ciyaareen laakiin Iridole wax guul dara ah meeshan ku dhicin ilaa ma finaalaha ka tiigsatay guul ay markaas halkan ku imaaday inta birita insha Allah waxa rajaynaynaa in ciyaar qurux badan markaas halkaas Dr. Ayub Stadium lamada kooxood bay ku soo bandhigi doonaan sidoo kale labada kooxba koox baa biri ku guuleysan doonto champion noqon doonto hadii sida markaas maamulka ciyaaraha ay shaaciyeen oo markaas Ilaahay aqbalowiyaan marka waan arki doonaa kulay siday wax noqon doonaan biri camaamad iyo ii sheegay gambar iyo waxa soo qaadan kartay soo qaado meel fiican boos fiican iyo meesha ka fadhiiso meesha fariisatid kooxda aad taageeraysid taageerayaashaada meesha ay fadhiyaan fariiso wax buuqaado sameeynin kooxda taageer hadii sabaxan noqon lahayd ku taageer hadii noqon lahayd gurbaan ku taageer hadii sacab noqon lahayd ku taageer wax ka baxsan balse inaan la sameyn doonin insha Allah waa rajaynayna labada kooxoodna habeen dambo koox baa weyn noqon doonta hadii Ilaahay yiraahdo waan u hambaliyeen doonaa koox walba oo markaas waan u hambaliyeen doonaa koox walba markaas weyn noqota hadana waa u hambaliyeenina labada kooxood hadana waa u hambaliyeenina labada kooxood maadaama ay kama dambeys soo tiigsadeen waxaan leenahay ciyaar qurux badan insha Allah iyo wixii laga rajeenayo oo xamaasad leh oo xiiso leh oo qurux badan inay wixii ku soo dhamaadaan insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo aniga waa saaxiibkiin Jeelaan Cali Mucu Kamara oo idin leh sports hormar leh